daawo muuqaalkan bilow ilaa dhammaadka waxaan kugula wadaagi doonaa 5 sababood oo aad uga baqanayso inaad qof jeclaato. qaar badan oo inaga mid ah ayaa waxa ay ka baqanayaan runtii inay wax jeclaadaan, taasoo ka dhigaysa inay yeeshaan difaacyo ay aaminsan yihiin inay ka ilaalin doonaan in dhaawac soo gaadho qalbiyadooda. run ahaantii maxaad isugu diidaysaa inaad wax jeclaato adigana lagu jeclaado? lambar 1, jacaylku baqdin ayuu ku geliyaa adiga. markasta oo aad si qoto dheer qof u jeclaato waxa kugu sii kordhaysa cabsida ah inaad qofka waayi doonto. marka uu jacayl kugu dhaco waxaad had iyo jeer ka fikraysaa oo cabsi kugu beeraya inaad weydo qofkaad jeclaatay, taasoo mararka qaar noqon karta sababta ay dadku uga baqaan jacaylka. waxay iska ilaaliyaan xidhiidhada iyo inay si buuxda qalbiyadooda u siiyaan dad kale si ay cabsidan uga badbaadaan iyagu. lambar 2, waxaad ka cabsanaysaa inaad noqoto qof nugul. tani waa sabab kale oo dad badan ay uga baqaan inay wax jeclaadaan, waxayna ka baqayaan inay noqdaan kuwo nugul. inuu jacayl kugu dhaco ama qof aad jeclaato ayaa waxa ay ku tahay khatar weyn, iyadoo dad badanna ay ka baqaan ku dhiirashada khatartan. markaad qof jeclaato waxaad arkaysaa inaad aaminayso lamaanahaaga, taasina waxay ku dareensiinaysaa inaad nugushahay. sidoo kalena waxaad aaminaysaa in jacaylkaaga lagugu bedeli karo dhaawac. lambar 3, waxaad ka baqanaysaa in lamaanahaaga aanu si dhaba adiga kuu jeclayn. dad badan ayaa ka baqaa inuu jacayl ku dhaco sababtoo ah waxay ka baqanayaan in lamaanahooda aysan ka helin jacayl ku filan iyaga. waxay ka baqanayaan inay si aada ugu dhowaadaan qof oo ay u jeclaadaan, balse iyagana aan loo jeclaanin sidaasi la mid ah. welwelka ah in lamaanahaagu aanu kuu jeclaanin sida aad u jeceshahay oo kale waa sababta kaa hor istaagi kartaa inuu jacayl kugu dhaco adiga. lambar 4, waxaad aaminsan tahay in jacaylku aanu jirin. dad badan ayaa runtii iska ilaaliya inay wax jeclaadaan sababtoo ah waxay rumaysan yihiin in jacaylku aanu jirin, mana rumaysnaa in qof si dhaba uu u jeclaan kara iyaga. mararka qaar aaminaadahani ayaa waxay keeni karaan inaad wax jeclaan weydo. lambar 5, waxaad ka baqanaysaa in mar kale uu dhaawac ku soo gaadho. cabsida ah in mar kale lagu dhaawaco ayaa ah sabab kale oo dad badan ay uga baqaan inay wax jeclaadaan. dhaawacyadii kaa soo gaadhay xidhiidhadii hore awgood waxaad noqonaysaa qof ka walwala furitaanka xidhiidh cusub. waxaad ka fogaanaysaa inuu jacayl kugu dhaco maadaama aad ka baqanayso dhaawac iyo xanuun daran inuu soo gaadho qalbigaaga. maxaad naftaada u siin la'dahay fursad kale oo aad mar kale wax ku jeclaato?